الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Macal Cabqari YouTube channel. waa channelkeeni kusoo dhawaada. maanta waxaan idiin wadnaa vocabulary ka socday Macal Cabqari YouTube kiisa ama Macal Cabqari YouTube channelka. vocabulary-gaasi waa buugaag taxane ah ilaa ka kooban 6 buug. magacooda buugagta ama magaca buugga waxaa la yiraahdaa 4000 essential English words. buuggu wuxuu ka kooban yahay 30 unit ama 30 chapter ayuu ka kooban yahay. chapter kastaahina wuxuu soo bandhigayaa 20 eray oo loo yaqaano target words, erayada la beegsanayo oo la macnaynayo. wuxuuna sheegayaa 8 part of speech-ka ama word class-ka nuuca uu ka yahay, waana macnaynayaa ugu yaraanna uu gelinayaa 1 jumlo ama 2 jumlo ayuu gelinayaa. buuggii koowaad ayaa ka socday Macal Cabqari YouTube channel oo markii hore ahaa Cabqari online YouTube channel, haddana loo bedelay Macal Cabqari YouTube. haddaba buuggan unit-kii koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad wuxuu ku jiraa YouTube channelka Macal Cabqari. toos ayaad ugala socon kartaa. maanta waa unit-kii 5aad, balse intaanan u gudbin unit-ka 5aad aan hordhac yar ama concept yar kaa siiyo duruusta kala duwan ee ka socota Cabqari Online Academy. waxaad heli kartaa luqadda Englishka oo bilow ah 6 biloodna soconaysa. 6da biloodna bil walba aad ka bixinayso $5 ayaad helaysaa. buugga siinta buugga iyo workbook iyo siinta buugga iyo workbook 2 level lagu qaadanaya. koorsada bilowga ah, beginner iyo elementary lagu qaadanaya. base-ka grammar-ka laga dhisaya, tensisada, erayo badan ilaa 400-500 erayna waad qaadanaysaa. koorsada xigta waxay noqonaysaa koorso loo yaqaan intermediate, intermediate, advanced. 3 koorsa lagu qaadanaya. 3 buug waxa lagu qaadanayaa 3 levelka koowaad, levelka labaad iyo levelka saddexaad. level kastaana 2 bilood ayuu soconayaa, waana 6 bilood. basic English grammar book 1, basic English grammar book 2 na lagu qaadanayaa, iyo 1 buug oo buugagtan 6da ah kan kiisa ugu horeeya lagu qaadanaya. iyadana bil walba $5 iska bixinaysaa. waa 6 bilood oo min $5 ah. marka 6 bilood min $5 bil walba aad bixisana, macalinka exercise-yada iyo activity-ga wax dhan uu kuu saxayaa. su'aalaha, wada sheekaysiga iyo howlo fara badan iyo shaqo badan iyo quiz iyo assignment waxbaa la isu diraya. laakiin waxay jirta mar lagaa qaadaya 2 koorsaba hal mar aad lacag iska bixinayso $10. 2 koorso bilowga ee dhamaystirka 2 koorso aan soo sheegay. laakiin wax quiz iyo exercise iyo shaqo ma lahan. casharka waa lagu bilaabay, lacagtana waa iska bixinaysaa. marka koorsada dhamayso ayaa imtixaan general laga qaadaya. haddaa baasi waa lagu siinayaa shahaada. laakiin midda $5 waxay uga duwan tahay macalinkii exercise-yadii, su'aalihii wixii ku kaga shaqeynaya oo macalinkii si joogto kula jooga. kaas laakiin kulama joogo oo casharada unbuu kuu soo dhigayaa. markay koorsadu dhamaatana general test English general test uu ka qaadaya. waxaa jira koorsooyin kale oo gaagaaban aan ugu talagalnay sida vocabulary-ga. hadda aan maanta YouTube-ka Macal Cabqari YouTube aan ku soo bandhigayo oo buugga koowaad unit-ka 5aad aan idin sharaxi doono. waxaa jira 6da buugba koorso 4 bilooda oo lagu qaadanayo. waliba 5 bilood meelahaas inay ameeyaan, laakiin hadii laga yaray kara waa la fiirina. lagu qaadanaya 6da buug bil walbana waxaa iska bixinaysaa $5. 6da buug waad helaysaa. 6 buug oo min 600 oo eray waaye. waxaase kasii daran erayada kasii badan erayada kale aad ka dhex helayso jumlooyinka iyo sheekooyinka iyo exercise-yada iyo shaqooyinka. 6da buugna waad helaysaa. 5 biloodna ama 4 bilood midii aan ku 5 bilood 4 bilood aan rajeynaa, laakiin ilaa 5 bilood noo qaato arkayna ilaa 6 buug waaye na waad helaysaa. buugti video-yadoodana waa helaysaa. koorsaasna iyadana way bilaabanaysaa bishan hadda soo socota. hadda midaan hadda dhamaanaysa ee socota
ayay bisha cusub ay bilaaban doontaa insha Allah haddii Ilaahay yidhaahdo. Kusoo dhawaada kana faa'iidayso kor. Grammar oo kale jira asna gooni ah oo 5 bilood loogu talagalay in lagu qaato. Speaking course ay jirto 4 bilood ah. Koorsooyinkaas gaagaabanna way jiraan. Aan u gudubna casharkeennii sharaxaadeennii balse intaana sharaxaadii u gudbin marka hore aan dhageysano unitka insha Allah. Soo dhawaada ka faa'iidaysi wacan. Unit 5. Word list. Aware. If you are aware of something, you know about it. I was not aware of the ringing phone. Badly. Badly means in a severe or harmful way. He hurt his arm badly playing with friends. Belong. If something belongs to you, you own it. The blue suit belongs to Paul. Continue. To continue something is to keep doing it. She stood under her umbrella as the rain continued to fall. Error. An error is something you do wrong. I made an error on my report, so my boss was angry. Experience. An experience is something you have seen or done. Rock climbing was a fun experience. Field. A field is a big area of land. The field of flowers looked so pretty. Hurt. To hurt is to do something that makes you feel pain. She hurt her leg falling down the stairs. Judgment. Judgment is the ability to form opinions or decisions. It's good judgment to recycle your aluminum cans. Likely. If something likely happens, it will probably happen. I will likely stay at home and watch TV tonight. Normal. If something is normal, it is not strange nor surprising to you. It is normal for me to bathe every night. Rare. If something is rare, you do not see it very often. It is rare for him to miss his flight. Relax. To relax is to rest. The frog relaxed in the warm sun. Request. To request something is to ask for it. The little girl requested a special gift from Santa Claus. Reside. To reside means to live somewhere permanently or for a long time. My brother and his family reside in a lovely house on the beach. Result. A result is something that happens because of something else. As a result of all the rain, the man had to climb on the roof. Roll. To roll is to move by turning over and over. You must roll the ball into the pins when you bowl. Since. Since is used to talk about a past event still happening now. Since 1992, he has been driving that car. Visible. If something is visible, it can be seen. The moon and stars were visible in the night sky. Wild. If something is wild, it is found in nature. You should be careful around a fox because it is a wild animal. Okay, intaas waxaa noogu dhan dhageysigaan dhageysanayna marka aan bilaabno sharaxaada. Marka qofka casharada 6 buug marka la qaadanayo videogaas la siinayaa oo buug walba uu leeyahay 6 buug waa la siinayaa waa loo sharaxayaa Soomaaliya lagu wada macnaynayaa. Marka koorsadaas waa maaragtay waa laga helayaa Cabqari online academy marka kusoo dhawaada ka faa'iideyso waxaan. Marka casharkeena aan hore wadano waxaan rabnaa marka in aan bilowno sharaxaadii Soomaaliga. Waxaa la yidhi eragan aware micnaha waxay noqonaysaa waxaa la if you aware of something haddaad wax ka war hayso you know about it waad ogtahay macnaha.
aware waa la socosho ama ogaansho waaye. I was not aware of the ringing phone. Ma aanan ogeyn taleefanka dhacaya. Ka warqabidna way noqonaysaa. Marka I was not aware of ringing tone. Erayga badly waa si xun, bad ka timid. Si waa mar haddaa aragto ly si xun, si dhaqsiya, si waay. Badly means badly micnaheedu wuxuu noqonayaa in a severe, ba'an, daran ama harmful way. Hab daran ama hab xun ama waxyeelo leh. Harmful waa waxyeelo leh. Severe-na waa daran. He hurt his arm badly. Macnaha gacanta ayuu si xun uga dhaawacma ama isaga dhaawacay playing with friends, isagoo la ciyaaraya saaxiibo. Erayga kale belong waxa waaye lahaansho waaye. Waa erayada lahaanshaha loo isticmaalo. Erey kasta marka kan waxaa ku hor qoran adjective, kan waxaa ku hor qoran adverb, kan waxaa ku hor qoran v oo verb. Marka adv adverb laga soo gaabshay, horan u aragnay. adj na adjective, v na waa verb. Belong marka waa verb. If something belongs to you, haddii wax adigu aad leedahay, you own it. Haddii lu something if something belongs to you, this car belongs to Ali. Gaarigan Ali yaa leh. Meesha Ali has a car laga leeyahay oo has la isticmaalaya, kan waa la isticmaalaa. Laakiin waxaa la hormarshaa waxa la leeyahay. The computer belongs to me. The computer belongs to Ali. The car belongs to ala leeyahay marka. If something belongs to you, haddaad adiga waxa leedahay, you own it waa leedahay. The blue suitka buluuga ah belongs to Paul ayaa iska leh. Belongs to Paul ayaa iska leh suitka buluuga ah. Erayga continue waa sii wadid ama sii socosho. To continue something in wax la sii wado is to keep doing it. Waa in wixii la sii joogteeyo. She stood, way istaagtay, standing ka timid, under her umbrella. Waxay hoos istaagtay dalladii ay wadatay. As the rain continued to fall. Astan micnooyin badan ay leedahay. Mar waa senis, mar waa when, marna waa if. Hadda waxay ugu jirtaa senis maadaama the rain continued to fall, maadaama roobku da'ayay, uu socday macnaha inuu da'o ama da'ayay. Macnaha kale marka rain waa da'id, marka waa roobkii. Asta waa senis hadda marka. She stood her umbrella, dalladeeda hoos fay istaagtay maadaama roobku uu da'ayay, uu sii socday inuu da'o macnaha. Error waa qalad waaye, waa noun. An error is something you do, waa waxaad samayso wrong, si qalad u samayso. I made an error, waxaan sameeyey qalad. I made an error, waxaan sameeyey qalad. Qalad ayaan sameeyey. I made an error on my report. Reportkan qoraya ayaan qalad ka sameeyey. So my boss was angry. Sida daraaddeed ninka madaxda iyo booskayga wuu ka xanaaqay ama wuu caraysnaa ama wuu carooday. Experience waa waaye aragnimo. Qaladaadkaanoo aruura ayaa waxaa loo yaqaanaa waaye aragnimo ayaad ka helaysaa. Marka an experience is something waa wax you have seen, aad aragtay ama dhan ama aad samaysay. Rock climbing waa koridda buuraha ama dhagaxda koridooda was a fun experience. Waa aragnimo cajiib ama la yaab leh waay. Was fun experience. Erayga field waa goob ama beer. A field is a big area of land. Waa goob dhuleed oo weyn. The field of flowers. Macnaha beerta ubaxyada looked so pretty. Waxay u muuqatay ama waxay ahayd mid qurux badan. So waa very, pretty waa quruxoon. Looked markaan waa state verb ahaan loo isticmaalaya. Looked so pretty waa adoo yiraahdaa were so pretty, aad ay u qurxoonayd beerta ubaxyada lagu beerayo ama ku beeran yihiin. Hurt waa waxyeeleen ama dhaawacid. To hurt is to do something waana wax samaysa that makes you feel pain, ku dareensiiya xanuun macnaha. Waa wax kugu dhaca ama isdhaawacid ama inaad wax isyeesho ama wax isku jarto ama wax isku qasho kale. She hurt her leg falling down the stairs. Macnaha lugta ayay iska dhaawacday waxayna kasoo dhacday jaranjarada. Judgment waa xugmin ama go'aan ka gaarid. Judgment is ability or awood to form opinions lagu sameeyo aragti ama fikrado or decisions ama go'aan lagu gaarayo. It's a good judgment. Judgment marna iida meeshaas way ka maqan tahay, marna way ku jirtaa. Americanka iyo waxa ku kala duwan Britishka. Marka Americanka iyo Britishka kala duwan. It's good judgment to recycle your aluminium cans. Gasacyadaada aluminiumka macnaha waa in la recycle lagu sameeyo, dib loo warshadeeyo, loo shiido
waa ra'yi wanaagsan waa macnaha. Likely waa suurtagal ah. If something likely happens, hadday wax suurtagal tahay inay dhacaan, it will probably happen. Way dhacayaan. Probably ma hadii la yidhaahdo boqolkiiba 98 waxaas inay dhacayaan waa macnaha. Laakiin for sure hubaal uma dhihi karto waa dhacayaan waxaas. Laakiin boqolkiiba 90 in dhacayaan ayada aaminsan tahay. I will likely stay at home. Waa suuragal inaan joogo guriga and watch TV tonight. Caawana TV aan daawado. Normal. If something is normal, hadday wax caadi yihiin, it's not strange, wax qariib kuga maaha, nor surprising to you, wax kaa yaabinaya maaha. It's normal for me, caadi bay ii tahay aniga, to bath every night, inaan habeen kasta qubaysto. Bath waliba waxa wasak inaad barkad gasho ama waaskada lagu qubaysto inaad gasho waaye. It's normal for me to bath inaan qubaysto every night habeen walba caadi ii tahay. Rare waa dhif. Rare maxaa waaye? Waa dhif. It is rare, adjective waaye. If something is rare, hadday wax dhif yihiin, you do not see it often, badanaa ma arkay, very often, badanaa ma arkaysid. It is rare for him to miss his flight. Waa dhif inuu maaragtay ka baaqdo ama seego duulimaadkiisa. Relax waa nasasho. To relax is to rest. Inaad nasato waaye relaxigu. The frog relaxed. macnaha baalkan la yiraahdo raha relaxed in the warm sun. Wuxuu ku nastay qoraxdii diiranayd. Request waa codsasho ama weydiisasho. To request something is to ask for it oo inaad wax weydiisato. The little girl gabadhu requested a special gift. Waxay weydiisatay hadiyad khaas ah from Santa Claus. Santa Claus waa sheekh ay kule mala awaale gaaladu u yaqaanaan. Reside waa degid. To reside means waxay macnaheedu noqon to live somewhere inaad ku noolaato meel permanently si joogto ah ama for a long time. My brother and his family, walaalkay iyo qoyskiisu, reside waxay degan yihiin in a lovely house, guri qurux badan. Eragan lovely waxaan u naqaanay jacayl. Marka ly mar hadduu wato noun wax ka sheegayo waa beautiful waaye, guri qurux badan waaye, on the beach xeebta ku yaala ay walaalkay iyo qoyskiisu degan yihiin. Result waa natiijo. A result is something waa wax that happiness dhaca because of something else, wax kala darteed. Because of haddaa aragto, because of you ayaan halkaan u imid. Because of you ayuu u dhintay ninkan, adi darta ayuu u dhintay. Because of your love. Because of your love. Love maya. Because of your love. Jacaylkaaga dartiis ayaa halkaan i keenay. Howlihii dhalinyarada macnaha. Marka because of something else, wax kale darteed u dhacaan waay. As a result of all the rain, macnaha natiijadii dhammaan roobkii da'ayay, the man had climbed on the roof. Wuxuu fuulay guriga. Sababta guriga ka daynayay laamiyeeriga. Marka natiijadii waxay noqotay inuu fuulo macnaha roofka kore. Roof saqaf guriga lahaa. Sailingna waxaa la sifitada hoose. Roll waa laalaabid ama dulduloomid waaye. To roll is to move by turning over and over. Waxaynu isii rogrogaan. You must roll the ball. waana banooniga ku tuurtaa into the penis when you bowl. Waa aragtaa bahaladaas baashara kuusan oo banooniga camal culus laakiin ayaa lagu tuurayaa. ciyaarta soo taqaana waana artinta badan. Marka roll the ball banooniga ku tuur waa into the pen. Ilmaha caag yarka inta ku shuban carrada oo kale ay ku tuuraya mid kamid ah si uu u rido dhowr xabo. Marka you must roll the ball waa inaad banooniga ku tuurto into the penis when you bowl. Ball baaquli waaye, penna penka caadiga ah waaye, laakiin macno kale meeshan ugu jiraan. Penis baalaas caadka lahaa, ballna waxaa la yidhahdaa baashan ama tuuristeedana waa lahaa. Senis maadaama waaye, senis maadaamana way tahay, ilaana way tahay. Senis isiisa waxaa loo isticmaalaa to talk about in looga hadlo a past event, dhacdo baasi is still happening now, welina dhacaysa. Since 1992 he has been driving that car. Taysada barafaktiyaasha loo isticmaalaa. Senis ilaana way tahay, maadaamana way tahay. Marka senis ilaa 1992 ilaa 1992 he has been driving that car. Gaarigaas ayuu kaxaynayay. Visible waa la arki karo. If something is visible, it can be seen, waa la arki karaa. The moon and stars waa bisha iyo dayaxa were visible in the night sky. Habeenka cirka ah, habeenka waa la arki karaa waaye xidigaha iyo bisha. Wild waa duurjoogta. If something is wild, it's found in nature. Waxaa laga helaa waxyaaba dabiiciga ah oo abuurta alla ku yimaada. You should be careful around fox. Waa inaad ka taxadartaa dawacada.
because it's a wild animal waa xayawaan duurjooga dabjoog iyo duurjoog waay duurjoogtu khatar waay waxbay cunayaan waxbay dilayaan sooma marka dabjoogta laakiin waa yaanyuraha iyo bis waxyaabahan dadka la nool ayaa loo yaqaanaa dabjoog wild marka saasay noqonaysaa insha allah cashirkeena maanta aan qaadanay ee vocabulary-ga ahaa 4000 essential English-ka ahaa ee aan kusoo bandhigay idiin soo bandhigay macallin Cabqari YouTube channelkiisa aan idiin soo dhigay intaas ayuu inoogu egyahay isagoo koorso ah 6 buug oo tixana lagu qaadanayo muddo yarna lagu qaadanayo khidmo yarna la iska bixinayo videos dhanna la wada helayana course ahaan ay uga socotaa Cabqari Online Academy contactigeena iyo telefonaadkeena nagala soo xiriir insha Allah waa maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh